السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وأنا إذن سلام الدون كمان والباد كجوكتان kusoo dhawaada channelkayga Muna's Home waa walaashiina Muna hanaga hilmaamina like inaa noo saartaan aad iyo aad ayay muhiim inoogu tahay iyo share iyo comment intaba dhammaantiis aad iyo aadna waan idinkaaga mahad celinayaa ayaamahani maasha Allah waa yara mashquulay xaflado kala duwan ayaan ka qayb galayay saa ogtihiin waxaa waaye xiliyadii studentiga ama ardaydii qalin jabinaysay marka alxamdulillah wax khayr kaliya ayaan ku maqnaa maantana waa kana muuqaal ayaan idin soo duubay routiinkeena ayaan diyaarsanaynaa saacadada aad igu barateen quraac ayaa saakay soo kariyay quraac kulul waflo ayaan soo dubay marka waa kana waflaheeni ayaan diyaarsanaynaa shaahigeeni green tea ayaan cabayay halkan waxaan ugu diyaarinayay gabadha maanta meel ayay aadayaan marka waxaa la dhahay macaan iyo waxyaabaha aad rabtaan oo aad soo qaadan kartaan marka buskudka Subway-ga kala jeceshahay iyo waxay iga dalbatay geedkani vanilla sticks ayaa la dhahaa marka iyo wax yar oo cabitaan iyo fruit marka alaabteeda ayaan u diyaarinayay maanta meel yar oo safar yar ay aadayaan oo iskuulka boorsadeeda ayaan u gelinayaa kadibna waxaa waayay iskuulkii ayaan qabanaynaa iskuulkii markaan aadno markaan ka imaanaan dhahay iskuulkii qasaaladan soo maray dhar yar ayaan kusoo shubay dharka ayaan iska boobsiinayaa dharka markaan iska boobsiiyo kadibna insha Allah waxaan rabaa routiinkeygii kale in aan ku foofo maadaama aan maqnaanayo galabta waa maqnaanayaa sidaas darteed waxaa hawsha gelinka hore ayaan iska qabanayaa marka labadii qasaalad waa kana waa kusoo shubay haddana xagii xaafadda ayaan aadaynaa insha Allah hawsha intaanan galin wax yar waxaan sameynayaa quraankeyga ayaan akhrisanayaa intaan hadhow aan hilmaami lahay ama waqtiga kale maaragta cariiri oo igu noqon lahay waxaan jeclahay inaan gelinkii hore aan iska aqriyo haddii aan ogahay inaan baxayo codsiyo badan oo waxaa iga soo dalbateen dhanka cuntadoo kala maanta oo kala hawshan way ugu badan tahay galabtan waan baxayaa dharna waan dhaqay sidaas darteeda cuntooyinka aan jeclahay oo fudfudud maaragta ayaan jecelaystay inaan idinkaaga faa'iideeyo maanta waxaan karin doonaa misir ayaan karin doonaa hal dab ayaan dhihineen waxaa ka wada hal digs ayaan ku karinayaa cashana waan ka dhigayaa qadana waan ka dhigayaa insha Allah marka inaad ila socotaan ayaa rabaa dhaladii koowaad aan idin tusayo waxaa waaye misirtii caadiga ama cadda sida u taqaanaan kanna waan idin tusin doonaa asigoo hadda lasoo jijibiyey oo laakiin ceyriin waay digirta hadda aan idin tusayo laakiin digirtan waa tana magacan ayaa leedahay waa chick atter ayaa la dhahaa luqada Swedishka ingiriiskana kale waxaa lagu dhahaa chickpeas kan wuu diyaarsan yahay gasac ayuu ku jiraa hore ayaa loo soo kariyay marka laakiin tan oo digirta aan isticmaali doono maanta way qalalan tahay oo waxaa waay cabaar ayay dibka saarnaanaysaa marka basal iyo tunti waan soo jarjartay wax yar oo yaanyadan ayaan ku shubanayaa iyo half gasac yaanyadeeda marka cuntadan waxaa waaye hindi ayaa laga leeyahay waa inaba caadi ma ahan waa hab yar oo fudud oo ilmaha aad ku siin kartid digirta saa ogtihiin waxaa waaye maasha Allah fitamiinaad badan ayaa ku jiro almost waxaa waaye hilib ayay u dhigmataa marka aadna way u maacdahay ilmaha ma diidayaan dhanankeeda lagama sheekeyn karo marka wax yar toon basasho kala ilmaha ma jeclo sidaas darteed waxaan jeclahay cabaar dabka inaan saaro oo ay jilacdo si looga dareemin digirtina u jeedeen waan soo dhaqay wax yar biyo ayaa la dhigay biyo hadda waan ka soo miiray waan isku darayaa xawaajiyada rabtid aad ku darsanaysaa filfil iyo wax yar oo maraq digaag ayaan ku darayaa kadibna waxaa waaye waa biyeena waa iska daboolaa dabka ayaan gaabinaa inaba caadi ma ahan bariis cad ayaan u karinayaa oo qada ahaan lagu cunaa ceeshna waan sameyn doonaa insha Allah hadda ceeshku ii qasan yahay waxaa sugaa inuu ii qamiiro cashana waxaan ka dhigayaa maraqan iyo ceesh ayaan ka dhigaa qada ahaanna waxaa waaye maraqan iyo bariis maqaayada hindiyo kale haddii aad tagteen oo aragteen u maleynaa inaba caadi ma ahan hindi xoog ayaa loogu isticmaalaa digirtani marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad soo tijaabisaan asxaabey maalmahan daalanahay ama maalmahan rabin jikadoo kale inaan ku dheeraado ma aragteen cuntooyinkan fudfud ayaan jeclahay ilmahana way ka helaan inaba caadi ma ahan haddana wax yar waxaan korka aan kusoo daray spinach yar oo aan soo jarjaray iyo basal yar ayaan dusha ugu daray basasha qasab ma ahan
dadka waaweyn ayaan basasha ugu talagalay maadaama ay ku macdahay. waxaana rajeynaa insha allah inaad soo tijaabisaan. wax kale kaama rabo, dabka ayaad u gaabinaysaa maanta dhan asi ayaa iska karaayo. waqti dheerna ma qaadanayso, almost saacad camal way qaadanaysaa. otherwise waxaa waaye dabka inaan u gaabiyo ayaaba ka danaysta aniga. marka waa kana hadda inaba caadi ma ahan, hilib waad ka maarmaysaa ama ilmaha hilib aanan cunin oo kale maaragtay way u fiican tahay. bariis cadaha, bariiskan waxaan kusoo kariyey biyo bis ayaan kusoo kariyey iyo wax yar cusbo ah. dufan dhan xitaa maanan kusoo karin maadaama saliid aan ku kariyey. maraqan saladkaada iyo liintaada inaba caadi maha, lagama sheekeyn karo. waxaana rajeynaa insha allah inaad soo tijaabisaan oo feedback aad iga siisaan. cuntooyinka kalena insha allah waan idinla wadaagi doona asxaabey. markaad waa kanaa qada ayaan diyaarsada, waxyar waan soo qadaynayaa. kadib waxaa hawsha guriga ayaa rabaa hal mar inaan ku yaaco oo aan iska kala hagaajiyo. qadadii kadib waxaa jikadii aan soo isticmaalay ayaan rabaa insha allah in aan iska hagaajiyo. alaabtii waaba iska dhaqay, wax badan ma aysan ii oolin. jikada ayaan gacanta hal mar wada marinaya. cashadii waa diyaar, qadadii waa diyaar. ii sheeg gurigii iska hagaajiyay oo waan bixi karaa. marka galabta maasha allah ani asxaabteeda ayaa ballansan insha allah magaalada. xaggii magaalada ayaa aadi doonaa, waana idin tusi doonaa waxyaabahan soo qabanayno oo aan sameyn doono. jikadana hal mar iska dhameynayaa. gurigii kale maasha allah huufarkii waan soo mariyey. maanta ii sheeg speed cleaning kaliya ayaan sameynayaa, deep cleaning ma sameynayo. sidaas darteed waxaa waaye hawsha guriga alxamdulilah way iska fududahay, ma adko. haddana waa kana waan soo baxnay galabkii markii la gaaray. aniga asxaabteyda waxaan imaanay meel spa ah. waqti ayaan rabnaa insha allah inaan ku qaadano, idinkan waan idin tusin doonaa. inaba caadi ma ahan, lagama sheekeyn karo hurdada aan habeenkaasi aan sexday maasha allah. meel yaroo relax yaroo maasha allah adii asxaabtaada waqti aad kusoo qaadan kartaan oo la qurxiyey. cuntadiina, macmacaankiina, waxa dhan maasha allah ay ku wada jiraan. halkan ayaan waqti kusoo qaadanaynay. ii sheeg 2 saxan oo fruit ayaa noola diyaariyey, cabitaanadeena iyo biyahan yar maasha allah. marmarka qaar waa la iskaaga baahan yahay, hooyaa la yahay, waxaa waaye orod iyo shaqo, adduunyo iyo aakhiro iyo ilmo la bursanayo ayuu waqtigeena u badan yahay. marmarka qaarkiis nafsadaada inaad waqti la qaadatid oo iska soo baashaashid adiga asxaabta. qolka la isku kululeynayo xitaa wuu ku dhex yaalaa. qolkani waxaa isku soo kululeynaysaa. lafaha iyo murqihii maasha allah way kala baxayaan. haddana waxaa waaye cuntadii iyo cabitaankii ayaan sugaynaa. waqti asxaabta iskala soo qaadanayay maadaamaan la kala mashquulay. qof walba waxaa waaye nolosheeda ayay bursanaysaa. meel dabaalka liyana ma ahan, waxaa waaye meesha masaaj ayay leedahay. waa jacuzzi sidaad u jeedaan. hadda masaajkii ayaa noo shidan. inaba caadi ma ahan, waan ka helay. waxaa waaye insha allah waxaan rajeynaa dhowr mar kaloo in aan booqano. kadib waxaan aadi doonaa casho ayaan isla soo cuni doonaa aniga asxaabta. waxaan rajeynaa insha allah asxaabi inaa muuqaalkii aad ka hesheen, share iyo like iyo comment intaba waa xaggiina. waa insha allah inuu mar kale iyo muuqaal kaloo xiiso badan.